ganacsiga markii hore wuxuu ka soo bilowday oo isla ogaa ina wax la beerto ina xoolo la dhaqdo meelahaas oo ka soo bilowday kacdoona kala duwan oo soo maray kacdoonkiisa koobaad wuxuu ahaa ina oo warshada la sameeyo warshadii markii la bilaabay in la sameeyo waxa isbedel xoogan oo ku imaaday habka ay dunida u shaqeynaysay wax soo saarkii aad ay u batay waxa loo baahday dad badan oo shaqeeya waxa soo baxay suuqa soo galay waxyaabo fara badan oo la soo saaray wixii waxay noqotay marka in dhaqaalihii dunida kor u kaco oo isbedel fiican oo ka imaado taas oo sababan kaliya warshadihii la sameeyay warshadihii sanada ay shaqeeyeen meel ay dadka soo gaarsiiyeen dad badan ayaa shaqo ku helay dad badan ayaa markaas saameyn xoogan noloshooda ku yeelatay sanada ayaa jiray waxa dib ka soo baxay oo markaa soo raacay warshadihii la automate gareeyo oo electricity la isticmaalo warshadihii markii la automate gareeyay ganacsigu uu sii xoogaystay awood xoogan oo yeeshay wax badan oo dadku si manual u qaban jireen ayaa waxay noqotay in dadka automatic ay u noqoto automatic markay noqotana sida suuqa waxa ku soo kordhay oo markaa awood fiican u yeeshay in wax soo saarka uu sii xoogaysto halkii maalintii laga yaabay in 10 funaanad laga soo saaro markii manual ay ahayd automation markii laga dhigay suuqii in 1000 funaanad la soo saari kara awood loo yeeshay dadka ka shaqeynayaan ay bataan warshadihiina sii bataan ganacsigu uu sii xoogaysto waxaa noo xigtay casriga internetka wuxuu aad u baabiyey ama markaas saameyn ka wanaagsan labadii ka horeysay ee warshadihii iyo markaas in wixii la automate gareeyo internetka awood xoogan oo suuqa keenay habkii loo shaqeyn jiray uu isbedelo in ay wada xiriiri karaan dad aanan isku meel joogin in ay wada shaqeyn karaan dad aanan isku meel joogin internetka inta markuu fududeeyay sanado badan markii la qabsaday wuxuu gadaal ka soo baxay marka AI artificial intelligence marka kood uu soo baxay dad badan waxa laga yaabaa inay u qaateen wax aad yani u dhib badan oo ana lagu kalsoonaan karin dabcan ilaa hadda sanadihii hore oo al stage ku jira waxaan tusinaysaa AI-ga isbedelada iyo xoogga waxwaaraha uu ku shaqeynayo iyo update-ka uu sameynayo in uu saddexdii kacdoon ee ka horeysay ka degdeg badan yahay salahan internetka markuu soo baxay markiisa koobaad 1G 2G ayaa xigay 3G ayaa xigay 4 ayaa ku xigay hadda waxa la marayaa 5 ina 5G oo internet la helo sanadaha ay qaadatay waa ogna waqti badan ayuu qaadatay 1G ila 5G soo gaarno sila mid ah markaan la barbar dhigno marka garaadka macamulka sidoo u koraayo 5 sano 6 sano gudahood waxa arkeena ina AI-ga search engine ahaan loo isticmaalo oo Google laga soo maarmay AI-gu marka nolosha dadka kaliya ma fududeynina waxyaabaha oo awoodda saaray oo aad macnaha ula falgalo oo ay tahay in laga faa'iideysto waxa kamid ganacsiga sababta uu dhahayn waxay tahay ganacsiga AI-ga marka loo isticmaalo tusaalahan haddii aad tahay company iibiyo tusaalahan fast food isku kale ama pizza oo kale waxaad si fudud u ogaan kartaa waqtiga ugu fiican ee pizza la iibsado waxaad ogaan kartaa dadka range-ga iibsado iyo sababta uu iibsada inta buu ogaan kartaa inuu qofka ganacsadaha maanta ku heli karo as a business oo ku dhiirigelinaha ganacsi walba oo Soomaaliyeed inuu businesskiisa meel walba oo kamid ah uu kaga soo dari karo garaadka macamulka inuu ku soo daro